داوية ومركز برنامج كمية فلسطين تجريد أكثر عن وقيت الأراضي وركن استدي لبعضين في أبريل بدي كل استدي طوان ما لنا الصبت وكل كلا برنامج فلسطين تجريد بيش عالم قاعد سوي مسؤول ويسي كمركان أوغوص عرضنتي شيء كي تاريخي جها يكون كي تاريخي جها كدعي deegaanka militariga ka caagan ee ku yaala xuduudda labada dal ee koonfurta iyo waqooyiga Korea labada hogaamiye Kim Jong Un iyo Moon Jae-in ayaa heshiis taariikhi ah tan iyo dagaalkii halkaasi ka qarxay ee markaasi soo dhamaaday 1953 markii ugu horeysay kala saxday waxayna markii koobaad hoosta ka xariiqeen inaan dagaal dambe dib uga dhici doonin منطقة إسلامكana waxaa hoos laga xariiqay heshiis rasmi ah oo amaan waxyaalaha yaab kale halkaas ka dhacay ee waxa kamid ah in ay sidoo kale labada hogaamiye ka wada hadleen waxa loo yaqaan dib u mideynta iyadoo la sheegay in dib u mideynta laga bilaabo qoysaska horta kala irdhowayga la yiri ee qaraabada artiga walaalka iyo wiilka ah ee labada dal ku kala sugnaa waxaana sidoo kale la sheegay inay ka wada hadli karaan baa la yiri qadiyad kasta oo labada dal in mustaqbalka ay noqdaan dawlad buuxda wow ay taasi ahayd wax aamis kaba oolin oo aan loo fadhiin haddana waxaa la sheegay in ay arrintu u noqotay arrin taariikhi ah kadib markii halkaas ay ka dhacday soo dhaweyno iyo waxyaalo yaab leh aan horey la soo ogeyn inkastoo ammaanka hogaamiye Kim Jong Un ay sugayeen ciidamo gaar ah oo uu watay isla markaana wiilal dhalinyaro ah oo sud wata oo la arkay xataa mar walba garabaya ay xataa markii uu galayay gaari markaasi Mercedes ah oo loogu talagalay oo nooca lamasiinka loo yaqaan haddana waxa la arkay ciidamada oo dhinac walba ka yaacaya Mr. Kim Jong Un sidoo kale meel uu fariisanayo qolalka uu gelayo meelaha kasta waxa kaga horeeyay koox markaasi dhinaca kiimikada ka hortagta oo buufinayay isla markaana hagaajinayay ka hor miiska ama fariisan meesha si loo ilaaliyo amaankiisa waxyaalaha kale yaab kale waxa kamid xataa musqusha uu isticmaalayay ayuu sitay Mr. Kim Jong Un inkastoo ay muuqanaysay kalsooni darro noocaas ah haddana waxaa si buuxda madasha u hareeyay jacayl iyo rayn xoogan waxaa hogaamiyaashu ay sidoo kale ku heshiiyeen in dhimis buuxda lagu sameeyo tijaabada isticmaalka iyo isku adeegsiga hubka nuclear-ka ay sida daran wax u gumaada beesha caalamka ayaa si weyn u soo dhaweysay arrintaasi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si taxadar leh u soo dhaweeyay kulanka wuxuuna barta Twitter-ka ku qoray kadib guri sanooyin buuri kadib sanad buuri gantaalo la tijaabinayay oo nuclear waliba qaarkood ahaayeen haddana waxaa dhacay buuri kulan taariikhi ah oo u dhaxeeya koonfurta iyo waqooyiga Korea wuxuuna haatan yahay buuri mid soconaya waxaanu leenahay waa arrimo wanaagsan waxa haatan ilaa hadda dhacaya balse laakiin buuri waqtiga ayaa sheegi doona waxaan halkaa ka cad inuu weli taxadar muujinayo Mr. Donald Trump madaxa qaramada midoobay ama afyeen u hadlay madaxa guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa isaguna wuxuu ku tilmaamay in caalamka oo dhan uu la anfariirsanaa isla markaana la riyaaqsanaa buuri indhaha ay ku hayeen bar kasta oo caalami ah oo ka warramaysa buuri wararka ku saabsan sawirada wuxuu awood badan iyo muuqaalka yaab kale labada hogaamiye halkaas ku dhaxmaray kaasoo muujinaya buuri in gobolka ama gacanka loo yaqaano Korean Peninsula uu yahay buuri mid la doonayo loola rabo nolol oo ay haatan doorteen hogaamiyaashiisa wuxuuna sheegay in ay u sacabtumayaan waxa ay arko wuxuuna yiri Antonio Guterres wuxuu faray inaan u sacabtumo isla markaana aan u sheego buuri dunida in ay wax kasta oo wanaag suuragal yihiin nabaduna iyo midnimaduna ay tahay tan kaliya guul lagu gaari karo aadanaha naftooda lagu badbaadsan karo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Japan Shinzo Abe ayaa isaguna sheegay in waxa haatan socda ay tahay buuri talaabooyin wax ku ool ah asagoo sheegay in haddii waqooyigu ay ka dhabeeyaan inay hubka nuclear-ka ay joojiyaan isticmaalkiisa ay taasoo noqon doonto buuri mid Japan iyo adduunka badan u ah sidoo kale wuxuu sheegay inuu arrintaasi si dhow uga shaqeyn doono oo kalena xiriiri doono dalalka Mareykanka iyo koonfurta Korea waxyaalaha kale laga wada hadlay ayaa waxa kamid ah ayaa la leeyahay in waqooyiga Korea uu dalbaday in la yareeyo joogitaanka ciidamada Mareykanka isagoo ugu yeeray baa leeyahay inay yihiin kuwa ayaga colaada hurinaya Shiinaha ayaa si taxadar leh iyaguna u soo dhaweeyay iyadoo Shiinuhu ay u arkaan baa leeyahay inay dib u midoobaan waqooyiga koonfurta Korea kuwa ayaga aan daruugu jirin sida xildhibaanayaasha iyo qadaadigayaasha maxalliinta ay ku warramayaan hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa tiri
waxaan aragnaa in si wanaagsan ilaa iyo haatan wax u socdaan waxaana soo dhaweynaynaa horumar kasta Sergey Lavrov ka Russiana oo wasiirka arrimaha dibadda Russia wuxuu yiri kulanka ka dhacay Baku South Korea wuxuu muujinayaa in caalamku mar kale danaynayo ama ay joogaan dad doonaya nabad sida daraadeedna waan soo dhaweynaynaa waxa markii ugu dambeysay halkaas lagu soo bandhigay heestel loogu magac daray gugi nabadda iyadoo magaalada Panmunjom ama dhismaha Panmunjom ku yaala oo noqday mid markaasi ay la wareegayaan gabdho iyo wiilal markaasi hees halka ku soo bandhigaya halka naga daawanaysaana waa qurfadhi media iyo warka ugu dambeeyay dunida dawladda qiimaha leh dabcanna oo warbixinihii dhinaca diblomaasiyadda qadar dhigistoodii dalka Romania madaxweynihiisa Klaus Iohannis ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaarihiisa dalkaasi gabadha la yiraahdo Fiyoka Dancyla inay iscasisho madaxweynaha ayaa wuxuu soo saaray war qoraal ah oo tafqiya tirankaas oo ka kooban 3 page oo markaasi gabadha lagu canaanayo wuxuu yiri Miss Dancyla waxa ay sameysay isla markaana ay ku dhaqaaqday buuri talaabooyin aan dawladdu isla ogeyn isla markaana madaxweynuhu uusan ka warhaynin taasoo ah inay gashay buuri mucaahido iyo heshiis caalami ah oo aan dalka Romania siyaasaddiisa ku jirin Iohannis oo madaxweyne Iohannis wuxuu warkiisa qoraalka ku yiri waxaan halkan si wuxuu yiri public ama si wuxuu cad oo maaragtay dadka oo dhan wada la socdaan ugu dhawaaqaya buur ama uga codsanaya ra'iisul wasaare Dancyla inay iska casisho shaqada xafiiska prime ministerka ama ra'iisul wasaare wuxuu yiri sababta waxay tahay buur kadib markay ku dhaqaaqday buuri talaabo khaldan oo ah buuri inay ku dhuumatay isla markaana ay ku tagtay buuri iyo socdaal aan la qorsheynin magaalada Tel Aviv ee dalkaasi Israel kadibna ay la soo gashay heshiis afgarada oo sir ah kaasoo ah mid markaasi meel ka dhac ku ah constitutionka ama wuxuu yiri dastuurka qaranka ee dalka Romania waxay taas oo ahayd buuri kadib wuxuu yiri sida cad buuri ku cad buuri qodobka wuxuu yiri 66 ee constitutionka dalka ama ahad qarameedka dalka u yaala ama dastuurka dalka u yaala waxa cad buuri in ay ku tumatay gabadhaas shuruucda waxaana weeye buuri in isfahan kasta oo qaranka Romania dan oo ah uu noqdo mid laga tashado madaxweynaha sidoo kalena madaxweynaha laftiisa uu kala tashado ra'iisul wasaaraha waxaana muuqatay oo la yaabay uu kadib markaan arkay buuri ayadoo ra'iisul wasaaruhu shir jira ku qabanaysay garoonka diyaaradaha oo sheegaysa inay u sii socoto magaalada Tel Aviv ma ogeyn shirkaas sababtay u tagtayna ma ogeyn waxaa si dib ka cadaatay in ay Netanyahu kula soo kulantay buuri magaalada Tel Aviv oo sheegtay inay Quds safaaradooda u rarayaan arrinta lagama wada hadlin buuri madaxweyne Iohannis wuxuuna sidoo kale sheegay inay taas tahay meel ka dhac iyo awood marorsi ay gabadhaas sameynayso wuxuu yiri weligay ma maqal ayuu yiri inay qorsheynayso inay booqanayso dibadda gaar ahaan Israa'iil sidoo kale ma ogeyn buuri arrin ku saabsan ajandaha laga wada hadlayo iyo sababtay halkaas u tagso qofku uu tagi karaa isagoo oo markaas dalxiis meesha doono iyo waqtigu doono hase yeeshee qofka hoggaanka dalka haya waa inuu madaxweynaha u sheega una sharaxa sababta goorta iyo deegaanka iyo dalka uu booqanayo ayaa war على lagu yiri madaxweynaha oo asagu ka tirsan xisbiga midig dhexe ayaa waxa uu runtii aad ugu dhaliilay haweeneydaasi inay qaadatay talaabo ayada u gaara halka inta badanna maamulka ama golaha baarlamaanka ee dalkaasi ay hogaamiyaan xisbiga markaasi bidixda fog ee asagu socialist ah si kastaba ha noqotay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa asaguna wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in madaxweynaha lala tashado wuxuuna sheegay in arrinta ku saabsan buuri in magaalada Quds loo raro buuri safaaradda iyadu waxay tahay buuri mid aan lagu soo qaadin kulankii ka dhacay magaalada Tel Aviv balse ay wasaaruhu iyadu haatan iskeed ugu dhawaaqatay taasna khilaaf xooggan ay dalka ka dhaxaboortay haddii dalka Romania uu go'aansado in safaaraddiisa uu u raro Jerusalem ama Quds wuxuu noqonayaa dalkii ugu horreeyay ee ka mid ah midowga Yurub ama ururka EU ee asagu sidaas sameeya taasoo haatan u muuqata mid khilaaf weyn dalkaas ka dhaxdalisa inkastoo ay maqli jirnay dalka Soomaaliya oo khilaaf ra'iisul wasaaraha madaxweynaha u dhaxeeyay iyo mooshin tan ayaa ka duwan ayaduna waxay isku hayaan arrimaha muhiimka ee marka ay timaado go'aan qaadasho ku saabsan siyaasadda caalamiga ee dalka markaasi lagu jaangooyo halka nagala socotaana waa horfadhi media iyo wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinada dhinaca diblomaasiyadda haatan Saudi Arabia dalka Saudi Arabia militarigiisa gaar ahaan ciidanka cirka dalkaas ayaa war qoraal oo ay soo mariyeen TV-ga Al-Arabiya ee afka dawladda dalka Saudi Arabia ku hadla ayay sheegeen inay qabteen gantaalkii labaad
muddo 3 maalmood gudihiisa kaasoo lagu soo hagayay ama lagu soo tuurayay dhulweynaha Saudi Arabia gantaalkan ayaa la sheegay in lagu soo beegsanayay deegaanka ama magaalada Jaysan ee dalkaasi Saudi Arabia isla markaana ay si kasma usoo hagayeen gantaalaha casriga ah ee haystaan biiradeen kooxda maleeshiyaadka Xuutiyiinta waxaa boqortooyada gaar ahaan ciidanka boqortooyada difaac cirku ay sheegeen inay gantaalkaasi qabteen iyadoo ay ahayd markii uu isniintii una ahayd markii magaalada Najran gantaal noocaas oo kale lagu soo riday waxay sheegeen inay xoojinayaan kooxda Xuutiyiinta oo sanadkan gudihiisa markaasi ku soo riday 100 gantaalaha plastic ah dalkaasi Saudi Arabia duqeymahooda tan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii toddobaadkii hore la dilay hogaamiyihii Xuutiyiinta oo gaar ahaan kii dhinaca siyaasadda taasoo cusboonaysiisay dagaal culus iyo gantaalo weerar ah oo ay harka kaga dhigayaan Xuutiyiintu dalka Saudi Arabia ayaa weli dagaal culus ka wada inta badan dalkaasi Yemen iyadoo haatan ay u muuqato in xaaladda dalkaasi Yemen ay tahay mid marmarkii kasii daras dalka Saudi Arabia sidoo kale waxay sheegeen inay adkeeyeen isla markaana ay horumariyaan difaaca xagga gantaalaha ee dalkaasi oo dhan iyo gaar ahaan goobaha muhiimka ah oo ku jirto aqalka looga taliyo dalkaasi ku yaala magaalada Riyadh garoonka ciidamada cirka iyo garoomada caalamiga ah ee kamid yahay King Khalid International Airport iyo waliba kuwa kale iyadoo haatan ay xoogeysanayaan xiisadaha ka taagan dalkaasi Yemen رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أيا ويدوان أصله شغلة لوريجي أيا وحوش جاي إنه وضع برشة بلارن أو كحديد يو إنت رئيس وزراء وهاي كرا حكم كأما طلاب بالكاس وحونا الشيء إن لقصو كوبيد دون يو كلي لبح اللي قدر شو كلي أريدس ayaa dhacdo weyn oo Ethiopia ay samaysay haatan sharciga wadankaas ayaa u ogolaanaya ra'iisul wasaaraha inuu xilka hayo muddo aan cayinayn taas oo noqon karta inuu weligiiba hayo xilka talaabadan ayaa kamid ah isbedel uu doonayay Mr Ahmed inuu dalkaasi wax kaga bedelo isla markaana uu ku khafiifiyo culayska xooggan ee dalkaasi haysta cabashada guud dhaqaalaha darrada dalka shaqada aanta iyo dalka oo uu egbalay mid ku jira gacan military رئيس وزراء السجى كورية حيلا مريم ديسالان أيها سلمة فلانة سعسري بشي فبراير السنة قومية ذلك سيقوم أيها تندونية إنه بداديو ذلك إثيوبيا وحونا سمعنا صباحيو شوكته إنه كنجا ذلك ودم ودتجي مجالك كسرنا ودونية إنه كقبض مركزي قطبة halkaasi wadaniyad ay buuxisay gaar ahaan kuwa isduulo wadanyarada oo u badan dalkaasi Ethiopia wuxuuna haatan ku hawleeyahay sidii uu dajilay dhalinyarada qoomiyadda Oromada iyo guud ahaan Amxaarada iyo guud ahaan dalkaba wuxuuna halkaasi ka sheegayaa arrimo ku saabsan hadallo midayn kara shacabka dalkaasi Ethiopia oo ayagu muujinaya laftooda in aysan doonaynin dawladooda iyo dalkooda ka burburo أبي أحمد أو أصله أفرطن يكوتشر هيستشهد هذا aqoonta ugu sareysay PhD da ayaa wuxuu sidoo kale yahay nin ka dhisan dhinaca ciidanimada maadaama uu qanay ciidan maaha aadna uu maamul ugu jiray tan iyo yaraantiisa sidoo kale wuxuu tusaale u yahay dhaqanka isku markaasi xadfan ee dalkaasi ka jira asagoo ka soo kala jeeda laba qoys oo qoysna uu yahay Kristaan qoysna uu yahay Muslim halka aabihii iyo reerka markaasi ka dhashan ay yihiin qoys Muslima halka hooyadiina ay tahay haweeney iyaduna Kristaan Abi Ahmed wuxuu sidoo kale aad ugu dadaalayaa baa leeyahay inuu wax weyn ka qabto xoriyada qowlka iyadoo darbaba la sii daayay markaasi baraha bulshada dalkaasi markaana xor laga dhigi doono wuxuuna sidoo kale sheegay in asxaabta dalkaasi oo dhan loo ogolaa doono inay u tartamaan ganacsigana laga dhigi doono mid xora wuxuuna u sheegayay doole fara badan oo u muuqda in ay dadka Ethiopian u bogi doonaan طبعا dalkiisa iyo sida uu hogaaminayo daawasha qiimaha leh tan iyo inta sarki doono